oo badan aad dalkoo dhan aad u haysiin waan ogahay arrimihii masiiriga ahaa dastuuriga ahaa dalka in adinka laydin idmaday go'aamadiinu waxay noo yihiin muhiim gaar ahaan xilliga hadda la joogo aaday muhiim noogu yihiin bulshada gobolka Banaadir tirakoob dhab ah lama hayo laakiin lagu sheegay inay 3 milyan yihiin waxaan idin sheegayaa inayan qanaaco dhammaystiran qabin Soomaalida dhan haddii la weydiiyo adigu ma qanacsan tahay qanaaco ma qabaan oo cid qanaaco qabtaaba iska yar laakiin haddana tabasho la taaban karo oo reer Banaadir jirta ma filayo tabashadaas jirta inay xilligan hadda adooshii gacanta ku haysiin inay dhaafi doonto insha Allah taala waxaan doonaynaa tabashadoodaas in loo siiyo fursad loo siiyo inay soo bandhigaan wixii guddiga halkan fadhiya iyo hay'adaha la midka ah hawsha gacanta ku haya ee wasaaradduba wixii gar ah inay tixgelin siiyaan wixii aan gar ahayna lagala doodo la yiraahdo ABCD gar ma ahan ama mataqaanaa waqtigeedii waa la soo dhaafay ama waqtigeedii lama gaarin ooga u kaadiyay wixii tabasha tirid ah loo arko inay gar yihiin in mataqaanaa loo tixgeliyo wasiirka wasaaradda suulka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii loo xalin lahaa baahiyaha iyo sidoo kale tabashooyinka ay muujinayaan muwaadiniinta reer Muqdisho hadda ayay dawladdu dadaal ku jirtaa in arrimihii cashuuraadka iyo maamulka la isku xidho si dakhliga dalku uu kaco marka waa waajibna saaran inaan xuquuqdooda ka turjino aynu guud ahaan hubinno sidii ay magaalada Muqdisho u bulaali lahayd oo u ahaan lahayd caasimadda dalka Soomaaliyeed iyadoo caasimadnimadii iyo waajibaadkii la hubinayo ay lahayd caasimadii iyo wixii laga filanayay iyo xuquuqdii dadka deegaanka labada iswaafin